السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلو صبرية ومركل كسول لابتي شاشتي دتك هذا نجد داونا لايف كي دتك مارتي كومنتي نوصل قري هذا أول سلامنا دمانتو أدونك دعالي ماشي كجوجان برنامج هذا ماشي كإعلام مني قيبتي سي لبعض ودتك هذا أم بلقادنا أسوق فولة وهذا نعدي سكتي وكذا وانتو شاشة كلسن تي في أدونك دعالي سلقة داود تي في انترناشونال كصوماليين رشيد dadweynihii hadda live aan ugu iclaaminay dadkii hore barnaamijka oo la kowsaday waxaan ka hadlaynay dhinaca samheelka ama immigrationka xafiiska shaqada iyo afar qodob oo iclaaminay iyo dadka talada la siinayo familiyada marka hadda barnaamijkeena hadda waxaan ku bilaabi doonaa marka hore horta dadweynaha hadda aan hore noo maqal isbar waad mahadsantahay cabdiqaadir salo oo faraxsanahay adoo ka socda tv-ga calson tv ina halkan ugu timaadeen xafiiskan ku leenahay xaafadan tenista oo magaalada Stockholm ah halkan xafiiskan wuxuu furan yahay dadweynaha Soomaaliyeed oo halkan waxaan ku siinaa barnaamijyo oo ah xagga sidii shaqo lagu heli lahay iyo xagga sida sharciga qofku ku heli lahay ama arrimaha qoyska dibadda ay xamara legal advice xagga sharcigan ka siinaa mujtamacan Sweden aan ku noolahay hadaan nahay Soomaalida waxaan soo galnay 90 mujtamac aad nooga horeeyo information some hello بس مجتمع information كمارسة أنا المجتمع وحنا كل ميد أو حاجة بيرليدا أما غير جوداجا وحصوق لنا وطن يوروب ونجهر مرة أنا وسأ ولقب سنة هن لبيتاي لكن سياشميدي لبكوا بدناي هاد إسبدل وين أقول على المجتمع الصومالي وهاد الجاري إلى بقول كون سيدتو كون الصومالية إلى وطن كون أفكار الصومالية وهذا شو مركز دور وين وانكعينا مجتمعان لنا سياستها النقطة سوق شغلنا وسوق لنا واجه هري عريريا كجري لكن dhibaatooyin waa xambaarsanay marka mujtamacana nimid dhibaatooyin oo ah adkeysay mujtamacana soo galno ha noqoto dhinaca dhaqanka wadano ama diinta wadano oo ka duwan wadanka Sweden oo keentay dhibaatooyin fara badan oo xagga marka ka hadlo mujtamaca Swedish-ka marka door fiican hadda waan ka bareena inkastoo nahay groupka wali ugu liito mujtamacan marka loo fiiriyo Iraniinta marka loo fiiriyo Kurdiyiinta marka loo fiiriyo dadka ka yimid Turkiyiinta Soomaalida groupka wali aad ugu liito oo dagaalamayo inay soo baxaan wali oo dhibaato badan ay haysto laakiin waxay fahmeen Soomaalida meel loo noqdo inay si jirin dadka hore reey ku jireen oo isdhayn Soomaaliya lagu noqon doonaa Soomaaliya isbedeli doonto nabadii soo noqon doonta waxa loo jeedaa wali nabadii Soomaaliya ay soo noqon markaas qasab bay ugu tahay mujtamacan Sweden in qayb aan ka noqono anagoo hataa culays badan naga saaran tahay taas oo markaan ka hadlay laakiin haddaan nahay Soomaalida waa dad mujtamac ka muuqdo oo dagaalamaya nahay waa ku faraxsanahay aad in aad ka caawinto walbaba rashid caawinada Soomaalida aad baan ula soconaa wadankan maadaama aad martay muddo deganeed hadda arinmahaaga ugu muhiimsan shanta shay oo hadda anaga aad rabnay inaan ka iclaamino iyadoo barnaamijka amarba u sii wadi doono qaybahooda kala duwan oo qayb aan dhigi doono arintan hadda ugu horeyso horta marka hore waxaan noo hormarisaa dadweynihiina hadda waan sugayaan samheelka ama دعنا المجتمع صامل كسومالي صامولي إن نحكي لهم بالربان لكن مركي ربان جنسية الصومالي إن البلدان السويش كان يرى هلا هذا وين السودان سديت سنة وحواجبه إني ودن كان جنبي يسكجلين أما ودن كان شيء يقولين هدي أن هلي لهين فرصة أن باسبور صوماليين أن أودي من الدولة السويديش كا وأن هلي لهين نظام كجيو صوماليا ودولة هو صوصة وراق الرشاة مركز باسبور كصوماليا ولا قنصل لا لكن نظام كمجرو نسيب هناك السفير بهالك الله مقعبي دولة السويديش كلا قنصي وكذا بشيء لكن ولي practically حفيز كي وحي لما فرق لكن وحنا لما مركو تاس فرنتو سهل لون نقولنسو مجتمع لكن وحا لقى الله مركز جنسية وطن كلا قادتي ما أنا أقادتي أنا كسفرتي كليه وأنا مجتمعا حتى دعوة تهي ومجتمعنا عروت هذا إيه توبرك حلنا صوص ميار عشورة الدعوة بحسيت مركز أو حتى مواد سويش أتاي ودولة سويش كان يكون دجالنا كتا نقد تنكلا رمها قحطيرة سيدا أكتهاي وأذكتها هذا شرعي ولا أتكي وحوجا وحلون حسيت دومركا dumarka loo naxariistana waa dumarka oo dhahay Soomaaliya ka nimid kaliyan baanahay aabba mali hooyo igraan hooyo dumar waxa laga hadlaa maalinga network macnaha xiriir
rag hadduu jiro oo aabbo adeer ama abti qofkaasoo kale waxa leeyahay dadkaaga ku noqo waa lagu badbaadinaya oo sharciga lama sii badana laakiin qof dumara keligeed hadday timaado waxay xaq u leedahay in sharciga la siiyo siiba koonfurta hadday ka timid maadaama waddanka soomaalida dumar badan lagu kufsado lagu dhibaateeyo oo xuquuqdoodana ay sugnayn marka ragga iyo dumarka marka la fiiriyo rag dumarka aada loo siiyaa sharciga waddankan Sweden oo ragga waxaa laga rabaa inuu qodobo culus ka soo baxo afarta qodob oo ugu muhiimsan qofka hadduu sharciga dalbanayo waa inuu ka tirsan yahay 4 group ama uu yahay nin journalist Soomaaliya ka socdo ama nin ciidamada ama booliiska ku jiray ama nin dowladda u shaqeynaya ama qof dumar dowladda u shaqeynaya ama qof NGO hay'adaha samafalka waa hay'ada waa afartaas group waa groupka argagixisada Soomaaliya ee ugaarsato qofkaas oo kale hadduu marka ka tirsan yahay groupka sharciga Swedish-ka waa la siiyaa laakiin tii bini'aadanimada ahayd waa laga joojiyey Sweden oo lama siiyo qofka waxa loo baahan yahay inuu dhibaato siyaasadeed ka hadlo waxaan ku wadaa Sweden kalimaha adduunyada idin hadda way adkaatay sharci bixinta oo la siinay laakiin hore dhaca qofka waa inuu helaa information qofka haddii la siiyo information oo la yidhahdo war su-aalaadka noocaasa ku imaanaya saasa sharciga lagu helaa badanaa sahal bay u noqonaysaa taas waxaan ka caawin waa arrimaha immigration ilaa haatan dad Soomaaliyeed oo heshiis dowladda Soomaaliya lala galay ma jirto inkastoo dad dowladda ka socda Soomaaliya ay mararka qaarkood ahayn anaga qof kastoo Soomaaliya lagu soo celiyo gacmo laakiin looma baahna gacmo furan qof kasta waddankiisa waa ku noqon karaa laakiin haddaa ka ogolaataan inay heshiis la gashaan dowladahan Yurub ku nool markaas waxaa albaabka u furaysaan kumanaalo Soomaali in dib loo celiyo taasna waxaa loo baahan yahay ururada Soomaaliyeed si dhab ah in dowladda Soomaaliya ku tiraahdo heshiis ha la gelina dowladahan Yurub joogo ha u sahlina in dadkii sahal ku soo celiyaan taas waa marka ka hadlay marka heshiiskii la gelayaana waxay u sahlaysaa in dadkii la celiyo hadhowna xagga waxba loo qabanin waxba looma hayo ammaankooda lama sugi karo shaqo looma hayo guri looma hayo marka dowladda markaas ka taliso Soomaaliya awooddaas male marka dowladdan Swedish-ka haddaan ka hadlayo waxay isku daydaa in Soomaaliya ama Norway ama Denmark in dowladda Soomaaliya heshiis la galaan ee ka dhadhacsiyaan war dadkan sharciga waa u diidnay qaabila laakiin sida Etoobiyaanka iyo Eritreanka hadday dhahaan maya qofka ikhtiyaarkiisa duro inuu Soomaaliya ugu soo noqdo anaga waa soo okay waa laakiin xoog kuma soo wadi kartaan Soomaaliya miginka laakiin nasib daro waxaa jirto dowladda qeybaha arrimaha qaxootiga Soomaaliya joogo dad aan aqoon lahayn baa jiro meeshaas oo heshiis qalad ah la geli doono laakiin markasta ururada waa inay dacwo ka sameeyaan ee dhahaan dadka masaakiinta albaabaha u furina oo in sahal loogu celiyo Soomaaliya marka maadaama marka wufuudda inta imaanayso Soomaalida waxaan ugu khasban inaan mar aan casuunasaan oo kale arrimahan aan kala hadalno haddii wufuud yimaadaan kale way yimaadaan madaxdaas waxay yimid immigration ka socda Stockholm yimid aan markaa maan joogin laakiin dadkii Soomaalida soo dhaway kuma aysan qancin maadaama uu ekay inuu yiraahdo waraninka Soomaali kasta waa qaabilayna hadaladiisa ma waa inuu heshiis la gelin dowladahan Yurub Mareykanka oo rabo dadkii Soomaaliyeed kumanyaal Soomaaliya sharciga loo diido ee rabaan inay sida aan maqalnay wadamo Yurub badan saas oo kale waa ka dhacday la galeen heshiis haddii Sweden bilowdo kulli diyaarado gooni la qaadaya Soomaaliya marka dib u geysanayaan dadkii hadhow marka sidii Sacuudi oo kale ha sameynayna ama wadada Carabta ha ku xadgudbina xuquuqda dadka Soomaaliyeed oo qaxooti doonka ah haddii wadankan laga celin waayo ee muddo joogaan xaq bay u yeelanayaan in dalab cusub kale ay sameeyaan marka waxaan la hadlayaa dadka hay'adaha dowliga Soomaaliya ka shaqeeyo heshiiskaas oo kale hagelina ururada Soomaaliyeed halkan joogna waa inay qoraan ay u diraan madaxda dowladda Soomaaliyeed aad kulli taladeena waa qaadan doonaan Rashiid waa ku maasantahay informationka ama iclaamaadka halkan ka jeedinayso marwalba hadda waxaan usoo gelaynaa dhinaca family road evening maadaama hadda aan ka hadalnay samheelkii iyo dhinaca qaxootiga immigrationka marka road eveningkan noo macnay waddanka Sweden markay family isqabaan khilaafaad ay dhacaan waxaa la sameeyaa waxaa jirto meel loo tago oo dadkaas heshiis la wada geliyo heshiiskaas oo kadib ha noqoto xagga dhaqaalaha ama xagga ninkii naagta isku qabsadaan laakiin Soomaali ahaan ma nihin barnaamijyadaasna waxaa loogu talagalay dadka Swedishka dhaqankooda iyo ayaa loogu talagalay marka anaga tii baan sameynay hadda oo arbaca kastaba oo fursadaas aan siinay 5 galabnimo familiyaasha Soomaalida waxaa dhibka ka jira dhalinyarada Soomaalida halkan ku kortay siiba wiilasha dilka ee dhaca wadankan Sweden ka dhaco waxa hadda ugu batay dhalinyarada Soomaalida iyo dhalinyarada Afghanistan ka yimid
waxay kala wareegeen suuqa yugoslaafka talyaaniga iyo turkiga ama wadamada carabta oo dambiyo cusub galeen hadda Soomaalida iyo Afgaankii number 1 bay galeen in laga boqo oo booliiska oo khiladaan uu keeno uu yiraahdo dhalinyarada sidii 10 jirka 19 jirka 20 jirka oo bistoolinka wato badanana Soomaalida ayaga isdisho maaha qof kale oo dibadda u yimaado hadda saa uuna dhowr iyo 10 dhalinyaro Soomaaliya ku dhintay xaafadahan Soomaalida u badan yihiin marka wiil kasto Soomaaliya suuq markuu jidka marayo wuu cabsanaya marka wiilka Soomaaliya jooga iyo kii Muqdisho jooga kan Muqdisho nabad ku nool marka qaarkood oo kan halkan nin kale oo Soomaaliya ka baqay inuu dilo marka dhibaato weyn baa familiyaashii soo galay familiyaashan xaafadahan waxay ugu soo bateen in ammaan ku helaan in masaajidka ka dhawaadaan laakiin dhib baa ka yimid oo wiilashii hadda gabar Soomaaliyeed oo xaafadan degan ajnabiga habeenkii suuqa ma aadi karto marka qaarkood way cabsanaysaa ka soo gabar Swedish ah wadanka u dhalatay ma soo gali karaan xaafadaha ajnabiga waa no go area marka dhibaatadaas ayaa haysato oo magaca Soomaalidana dhaawac weyn gaarsiiyay oo la leeyahay maanta Soomaalida Sweden ayaga la wareegay xagga dambiyada ama dilka dhaca in bangiyada dhacaan ama dil foolxumo ay geystaan ama xoogitaanka dumarka wadankan Sweden jooga ama ajnabiga ha noqdo marka dhibka taas waa sida kale marka qaabkee loo caawin karaa familkii dhibkaas familga ugu fiican waxa waa inuu ka guuro xaafadda ajnabiga ay ku badan tahay inuu u guuro xaafadda Swedish meeshaas oo ilmihiisa ku kursan karaa meeshaas oo ilmihiisa mustaqbal u sameyn karaa laakiin xaafadahan ajnabiga ku bateen ilmihii luqadda si fiican ma u baranayaan dad ba iskoolaad gooni u furtay oo yiri iskoolaadkaas private u furtay oo ilmihiina waxbarashadooda ay ku liidato markay iskuulka ka soo baxaan ay adag tahay inay secondary galaan ama jaamacadda ay galaan marka waalidku inuu ka fikiraa caruurtiisa 20 sano soo socdo war xaafaday geyn doonaa ma gartay taas waa marka aad waxyaalaha waalidiinta loo baahay inay go'aan ay gaaraan inay waxyaabaha ka caawinayso xafiiskaaga taas waa ku jirtaa arrimaha sharciga arrimaha looyarka caruur badan si qalad loo xiraa ma garatay tanna tala ka siinaysa Soomaa oo rodivnik macnihiisu waa saas exactly marka afsiris of Soomaali loo fasiro marka taas aan ka siinay marka arinta baasaboorka arinta baasaboorka saan u sheegay maadaama si wanaag la magacaabo safiirkii hadda waxaan sugaynaa inuu safiirkii halkan u yimaado xafiiska u furo markaas haddii safiirkii la aqoonsadana markaas aqoonsi waxaa imaanayo in baasaboorka Soomaaliyeedna la aqoonsado taasina guul weyn bay u gaaraysaa oo Soomaalida rabta jinsiyadda wadanka Sweden inta 8 sano sugi lahayn 5 sano ku qaadanaysaa iyo waraaqihii dhalashada iyo xafiiska canshuurta hadirtaan oo diiday waraaqda meherka Soomaali lagu dadka Soomaali isku soo guursado iyo waraaqda dhalashada oo xarantamay tii dib bay u soo noqonaysaa laakiin waxa loo baahayaa dhinacina dadaal marka hadda qaybtii gabagabadaan soo gaarnay Rashid annagoo barnaamijkan u sii wadi doono Soomaalida intaasoo aan soo koobnay ayaa maaragtay xafiiskan kala kulmi doontaan ku yaala adreeska tenista alla fotifira telefoonka waa eber 7 mar kale Rashid ugu celi adreeska telefoonka waxaad naga soo wici kartaan eber 7 arbaca kasta oo shanta kale dhimo halkan ayaa advice ku bixinaa oo road giving ku bixinaa shanta kale dhimo waxaa noo yimaada dad lawyer ah oo ku takhasusay arrimaha qaxootinimada arrimaha bulshada arrimaha dhaxalka maadaama dhaxalkan ka hadlayno Soomaalida dardaarin dhaxalka ma tagaan laakiin wayna ogaadaan arrimahaas kale xataa in wadankan waajib u ka yahay caawinaad ugu baahnaan karaan labada qofood haddii xataa ay isqabaan diinta islaamka laakiin ay register ay ku jiraan dowladda hoose sharciga waxaa qabanaya sharciga Sambul waa wada noolyihiin markaas way heshiis galaan waa isdhaxli karaan aad marka arrimahaas oo dhan ay u diyaar garoobaysaan ciddii barnaamijkan hadda kii hore la kowsatana live-ka ahaa aan ku bixinay Facebook-ga wuxuu ku saabsanaa arrimahan hadda aan ka hadlaynay ayagoo sii faahfaahsan qayb walba wixii kasoo kordho week walba labada weekba hal mar ayaan soo geli doonaa Rashid ugu dambeyntii asxaabta barnaamijyadan rabtaan sida rabtaa inaan ugu sheekeyno barnaamijyadan hadda ka hor aan Cabdiqaadir dhowr iyo 10 sano ka wadna wadanka Sweden oo open channel ka soo bixi jiray hadda Kalson TV aan mahad u celinayna oo adduunyada meel kastaba gaarsiinayso oo aan rabno barnaamij taxana ah inaan la socodsiino war Soomaalida Sweden ku nool horumarkii gaareen iyo xagga suuqa shaqada xagga nolosha iyo wadamadan dariskana Finland Denmark Norway hatta inaan ka sameeyno barnaamij taxana taas oo mid aan rabno marka aad baa mahadsantiin waxaan u baahanahay feedback inaan nala socodsiistaan sida barnaamijyada noocan oo kale aad u qaabilaysaan oo aragtaan asxaabteena waxaan leenahay waa mahadsantiin daawashada aan daawataan
waa Rashid Sabriye iyo Cabdiqaadir Salo oo idin leh aad iyo aad idinku mahad celinaynaa daawashada aan daawataan wixii oo maaragtay aad fikir qabtaan waxaa noogu dhaafi kartaan dhinaca Facebook commentiga iyo cajalada markaan soo gelinay kalsan kadibna aan YouTube ku sii gudbin waa maasantiin kalsan iyo Soomaalidana daawanaysa aad iyo aad Soomaaliya ha noolaato